Qaar ka mid ah xiddigaha ee ku matalayay gobolka Bari tartanka ee ka socday dowlad goboleedka Puntland ayaa la sheegayaa in shil gaari ay ku galeen magaalada Dhagaxbuur ee dowlad deegaanka Soomaalida. Ciyaartoydan ayaa ka ambabaxay magaalada ay koobkan ku ciyaarayeen, iyagoona halkaasi ku sii jeeday ayaa gaarigii ay wateen la rogmaday. Dhaawaca ayaa loo qaaday qaybo ka mid ah isbitaalada ku yaala dowlad deegaanka Soomaalida, halkaas oo hadda lagu dabiibayo, xaaladooduna la sheegayo in ay aad u wanaagsan tahay. Xiddigahan ayaa waxay ka mid ahaayeen ciyaartoydii ku matalayay gobolka Bari ee ka socday tartanka gobollada Puntland, waxaana la sheegay in hadda xaaladoodu ay wanaagsan tahay, lagu dabiibayo isbitaalada waaweyn ee ku yaala deegaanka Soomaalida, kaasoo ay ku howlan yihiin dhakhaatiirta kala duwan. Waxaana la sheegayaa in ciyaartoydan ay ahaayeen 4 ciyaartoy oo ka tirsan gobolka Bari oo ku matalay tartankaasi, xaaladooduna hadda ay tahay mid aad u wanaagsan. Waxaana jiro ayaa la leeyahay dhaawacyo ka soo gaaray qaybaha kala duwan ee jirka, kuwaasoo qaarkood ay jabeen sida xogta aan ku helayno, iyo sidoo kale qaarkoodna ay gaareen dhaawacyo fudud. Ciyaartoydan ayaa ka mid ahaa ciyaartoydii ugu wanaagsanaa tartankaasi ka qayb galay, iyagoona soo bandhigay tartankaasi intuu socday ciyaaro aad u wanaagsan, walow Bari aysan ku guuleysan tartanka lagu ciyaarayay maamulka Puntland.